jacayl la isku dilo si jiliin ah waa waxa kaliya lagu daawan jiray aflaanta kala duwan balse Cabdi Maxamed Nuur ayaa jacayl dartiis waxa uu isaga soo tuuray buundada Ansaloti ee degmada Waaberi si uu u muujiyo in jacaylka haya uu yahay mid daran waxaana haatan dhaawaca Cabdi lagu dabiibayaa isbitaalka Daarushifa anigoo dhahaya haystuurin ayuu buundada iska tuuray waxaa sida Universal TV u sheegtay Faadumo Nuur Cumar oo ah hooyada dhashay wiilka jacaylka dartiis naftiisa halista u galiyay sida waxa uu dhacay saaka wiilkay anoo jiifa liisoo ka cibiil walaalkiisa isoo wacay hooyo miyaa wiilka yarka Cabdullaahi waxa kor buundada korkiis asku soo tuurooya hadda soo raaray wiilkii oo kor saarna arkay hadda imaaday wiilka food saarna arkay wiil meesh mar ayaan dhahay abo wiilkaas ii qabasho isqowlaayeen wiilkii waa soo xoori gabarta oo jecelaa waa run gabartaas waa jirtaa waa gabar asaay saarnaay guriga macnaa sil joogeen aabihiis naag oo guursado mardhow aroosi meeshii isku barteen gabadhiya macnaa akhbadis waxay tidniyo miyaha nin idaro Cabdiyay jeclaati Cabdiin cayaal waa u kiyaamalaha san jecelka qabti ila afgood oo lisraacido asaay saaran waa ka yimideen haddana gabadhii daraadho asaay ka dhacay nin kala soo raasay ninkii ay raacday xaaladii hata waa raadi buug shaamo oo aadi gabadhii oo raad gabadhii arko suux waa qab meel oo dhigaalire saaka marka xalay aabihiisa dhaay wala niyo miyaha hooy macaan shaqeyso aniga taabel meel magaar naaka dirta ana ku daraayo shaqeyso hooyadan ku shaqey adin shaqeyso shaqadaada arko naaka dirta ana ku darsaay saas miyaa miska mooy si war u jir mashakili adin maskaxdiis si kala naqata amaleena saaka la saadi aabo waa shaqo oo aadi shaqraas nis aado ninkan waa soo albaabka ka xir aabi markii ishiis ku arko isgaadi waxa koray buundada korkeed markii kor ninkan waa baro ana isdilo Dr. Faarax Axmed Ibrahim waa dhakhtarka la tacaalaya kiiska wiilka jacaylka isku dili gaaray waxa uu na sheegay in haatan qatartii badneed uu ka badbaaday Cabdi kiiskan saake waxaan loo keenay isaga oo meel ka soo dhacay lug way ka jaban tahay garkana dhaawac ka soo gaaray ilkaana way ka jaban yihiin marka isagoo dhiig baxayna loo keenay gargaar degdeg ah oo fidinay raajooyinka asaarnayna waxay muujiyeen in uu ka jaban yahay laftan oo laay fiimarka qaybteeda sare oo ka jaban yahay emergency wixii loo baahnaa dhan waa fulinay in wax walba dhiig joojin loo sameeyo wax walba loo sameeyo lugtii la ilaaliyo oo jeesta loogu xiro aan sameynay haddana xaaladiisu fiican tahay ka soo reynaysaa qalin u baahnaan doona insha Allah gurigan waa guriga ay degan tahay Faadumo Bashiir Maxamuud oo ah gabadha darteeda isaga soo tuuray buundada waa u jeedaan guriga dushiisa ay buundada ku taala waa meelaan ka fogeen meesha iska soo tuuray Cabdi Maxamed Nuur balse si xog badan uga helno Faadumo ayaan wax ka weydiin doonaa bal taariikhda jacayl ka dhaxaysa Cabdi Maxamed Nuur iyo Faadumo Bashiir Maxamuud kan walaalkay amal leeyahay wiilkaas kalmurko imaahaya waxa dhaajir wiilkaana ku gubay marka oo hadis tuuri kana aroosa aan ku rabiya dhaajiri an kaftan amal leeyahay jacayl as u qawmiyeen ninkan kala isku gubay teer kala asrunta marko ishaan waa kaamin ninkan afaris waa ka bax xaday alle habartaak soo dhameesa dhaan diyaara kula wiilkeela waxa dhahday gabar asaaku oo fuulo oo habartaadna yaa osaanka goos qabto damba kal gurigeen ii keenaysi intii oo arintii saas suublad gabartaan aroos leed ana buundada iska soo gamaa saas dhahday aan damba kale marka taa waxa dhaa wiilka guriyaana hada asaa ida guriyaana bu faraaqaya saas dhahay asaa amko iday habeenkii waa jeeftay subaxdii guriyaana ka tay inuu istuuray ku sheego jacaylka dartiis isku dilay ma miisheeyani waa soo bacay أنا وقنا وحدا هردا هسه مشغول كبرنا يدا داي صباحدي عنجيرة دورة باي سيدات ساعة بين لما يسوى باي degmada Waaberi oo ah halkay dhacdadani ka dhacday waxay dadka deganay ugu magac dareen Cabdi Maxamed Nuur atoorihii jacaylka Maxamed Ciise Kona Universal TV Muqdisho